wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan maalinta shaqaaleynaha adduunka u dirtay dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa fasaxday shaqaalaha Soomaaliyeed munaasabada maalinta caalamiga ee shaqaalaha awgeed oo ku beegan maalinta berito ah mudane Sadiq Warfaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaqaalaha Soomaaliyeed u diray hambalyo iyo bogaadin isagoo guul u rajeeyay shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan waxaan hambalyo u dirayaa shaqaaleynaha Soomaaliyeed hambalyo ku aadan maalinta shaqaalaha adduunka oo berito ku beegan waxaan leeyahay hambalyo waxaan idin rajeynayaa guul iyo horumar waxaan idinku bogaadinayaa inaad sare u qaadaan dadaalkiina dhanka shaqada si aad horumar u gaartaan ayuu yiri wasiir Sadiq Warfaa maanta waxaan shir la qaatay dhammaan 48 hay'adaha dawladda anagoo ka wada hadlay barnaamijka isxilqaan meesha uu marayo iyo heerarkii kala duwan oo soo maray barnaamijka isxilqaan wuxuu soo maray heerkii koowaad labaad saddexaad iyo afraad marka hadda dhow waxaan bilaabi doonaa heerkii shanaad ayaan bilaabi doonaa dilaahid marka kulanka maanta wuxuu saabsanaa dardargelinta barnaamijka isxilqaan oo dawladda u yahay priority u leeyahay oo doonay inaan shacabka Soomaaliyeed shaqaalaha dawladda dhammaan hay'ad walba inay waqti geliso si dalkeen anaga u dhisano marka barnaamijku wuxuu saabsanaa si loo dardargelin lahaa howlaha isxilqaan ay ku saabsanaa maanta barnaamijka shirka waxa ka soo baxay horta si la socotid bishii Ramadaan ayana soo haysa waa la shaqeyn doonaa bishii Ramadaan heerarka kala duwan oo barnaamijka isxilqaan soo maray waxa maanta ka soo baxay in la dardargeliyo waxa xoogaa dareennay inay dabacsanaan dhacday labadii ugu dambeysay wareegii saddexaad iyo wareegii afraad marka waxaan maanta aan agaasimayaasha guud iyo dhammaan hay'adaha dawladda oo aan shirka la qaatay waxay inaan xoojino in sharciga la marsiin doono hay'adii markaas maartay maalintaas kale oo shaqaalaheedu ka soo qayb gali waayay marka waxa la rabaa in barnaamijkan dawladdu wuxuu yahay priority uu yahay marka dhammaan hay'adaha dawladda barnaamijkan waa barnaamij muhiimad gaar ah u leh dawladda wax badan lagu qabtay howlahina qaar badan gabagaba noo marayaan laakiin waxaan rabnaa in la dardargeliyo si howlaha qorshaha dhow mataqaana u gaarin hadafkii aan lahayn kowda bisha shanaad ee May ayaa dunida waxaa laga xusayaa maalinta shaqaalaha adduunka iyadoo guud ahaan caalamka uu si weyn u xusayo Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada laga xusayo maalintaasi Istar Maxamed Nuur JTV Baydhabo